رئيس الوزراء حكومة فدرالka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hogaaminayay oo maalmahan ku sugnaa magaalada Washington DC ee cariga Mareykanka ayaa kulan ballaaran la yeeshay mas'uuliyiin ka kala socda dalalka dunida iyo hay'adaha deeqaha bixiya Bangiga Adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka. Kulanka oo looga hadlayay habsami socodka cafinta deymaha Soomaaliya lagu leeyahay ayaa waxaa shir gudoominayay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre. Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa markii uu kulankaas soo idlaaday warbaahinta qaranka uga warbixiyay waxyaabihii lagu gorfeeyay kulanka. shirarkan aan nimidoo dhani waxay iskugu soo ururayeen waxa weeye kan iminkaan ka soo baxnay oo kala yidhaahdo round table-ka Soomaaliya loogu talagalay oo ay ka soo qayb galeen dadan xad lahayn, yacni sidii aan anagu filaynay ka sii fiicnaaday oo roonkii meesha aan ku jiray ay buuxsantay oo cid waliba danaynaysa inay ka hadlaan oo ka wada hadleen. waxay isugu yimi cid alla ciddii waxay nagu lahayd deymihii aan ka hadli jiray nagu lahayd baa isugu yimi, ama wadannada ha noqdaan wadannada Paris Club la yidhaahdo, ama kuwa Carabta ee non Paris Club la yidhaahdo, ama IFIs-ka kuwa la yidhaahdo ee baananka ah. giddigood halkan way isugu yimaadeen. Ra'iisul Wasaaraha ayay khudbadiisii dhageysteen, iyaguna khudbadooda bay akhriyeen, macnaheeduna yahay halkay Soomaaliya taagan tahay iyo waxay iyagu u malaynayaan meesha aan taaganahay. annagu waxbaan isku malaynaynaa, iyagu maxay u malaynayaan? iyagu waxay u malaynayaan inaan shaqo wanaagsan soo qabanay. giddigoodna waxay isku raaceen in Soomaaliya deynta cafinteeda la galo, la gudagalo oo la iskaga yimaado, oo Soomaaliya wixii looga baahnaa ee aan ku heshiinay sanadkiina dhaafay bishii 3aad, maanta waa bishii 4aad oo aan ku heshiinay inay Soomaaliya ka soo baxday ayaa la iska daba hadlay oo la iska daba qaatay oo la isku raacay. sidaa daraadeed in support ama caawimo Soomaaliya loo fidiyo sidii deynta looga cafin lahaana taladeeda la galo ayaa halkan ku soo gabagabowday. aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay. Dowladda Soomaaliya ayaa ka soo baxday shuruudihii ugu adkaa ee lagu xiray in loo ogolaado inay la xaajooto dalalka deymaha ku leh, balse waxa uu haray oo kaliya hal qayb oo laga doonayo inay soo gabagabayso. Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta iyo Maalgashiga mudane Jamaal Maxamed Xasan oo ka mid ahaa wafdiga Ra'iisul Wasaaraha ayaa uga warramay rajada ay dowlad ahaan ka qabaan inay hawshaani guul ku soo ilaato. waxyaalaha ugu waaweynana la ka rabo hadda noo haray waxa weeye 6 bilood soo socota in sidaan xukuumadna hawsha ku socoto aan dib looga noqon, in la dagaalanka saboolnimada istiraatiijiyadda dowladda kala ahaan lahayd iyo qorshe qaranka 9aad oo isku jira oo dhameystiran la dhameystiro sanadkan, iyo in dadku sidaan oo kala wadamada deymaha nagu leh la wargeliyo oo loo sheego xaaladda markasta marayso. Bangiga Adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka shirkooda dambe ee isugu yimaadeen dadka xukuumada boardka shirkooda halka markaa go'aankii lagu qaato. go'aan qaadashadii baa soo dhawaatay. go'aan qaadashadaasina waxay noo furaysaa albaabo fara badan oo wadamada hadda markaysan Ingiriiska iyo Mareykanka iyo Faransiiska wadamada waaweyn oo dhan lacagaha nagu lahaa kulligood ka hadleen meesha yiraahdeen go'aankaasaan qaadan doonaa haddii aan leedmo. go'aanka marka la qaato marka waxa noo furmay xiriirkii aan la macaamil lahayn adduunka iyo hay'adahan waaweyn Bangiga Adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka oo markaa noqon lahayd Soomaaliya wadan si loo siiyo markaa wax la yiraahdo creditkeedii dib loo hagaajiyay ama deyn cafiskii loo ogolaan karo hadda wax ka dambeeya. Wafdiga Ra'iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale kulamo gaar la yeeshay qaar ka mid ah mas'uuliyiin ka socday dalalka Soomaaliya saaxiibka la ah sida dalka Norway oo uu la kulmay wasiirka arrimaha horumarinta Ingiriiska iyo Sweden. kulanka oo ahaa mid kooban ayaa waxaa looga wada hadlay waxyaabaha ay Soomaaliya ka caawin karaan. dhanka kale Ra'iisul Wasaaraha ayaa kulan guul ku soo idlaaday waxa uu la qaatay mas'uuliyiinta hay'adda horumarinta u qaabilsan Ingiriiska ee loo yaqaan David oo mashaariic badan ka wada qaybo ka mid ah Soomaaliya. shirkii uu ka soo qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdi hogaaminayay waxaa lagu muujiyay inay dadaal la timid dowladda Federaalka Soomaaliya ee uu madaxweyne ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Washington, Mareykanka.